Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo maalmahan waday dadaalo uu ku doonayo sidii looga gudbi lahaa xaaladda adag ee kala guurka ayaa maanta kulan uu la qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ku meel gaarka Soomaaliya waxa uu kala hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sida ugu muhiimsan ee looga gudbi karo isaga oo sheegay in tallaabada kaliya ee looga gudbi karo xaaladda adag ee lagu jiro ay tahay iyadoo la waafaqo danaha shacabka iyo ahdiga ku meel gaarka baarlamaankuna uu danta gaarka ka hormariyo tan shacabka taasi oo uu la jeedo madaxweynuhu in shirka uu magaalada Nairobi kaga qayb galayo gudoomiyaha baarlamaanka ku meel gaarka aysan xukuumadda iyo shacabku ku qanacsaneen oo ay tahay arrin shakhsiyadeed waxaana madaxweynuhu uu xusay in guul la gaari doono haddii laga gudbo danaha shisheeye isla markaasina gogol nabadeed laga fidiyo gudaha dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa dhanka kala beeniyay warar sheegayay in madaxweynuhu uu ka soo horjeedo muddo kordhinta baarlamaanka wuxuuna xusay in uu codsaday oo kaliya in la furo wada tashiyo ku saabsan arintaasi mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxay warbaahinta isu marinayeen hadallo iskhilaafsan oo muujinaya khilaafka u dhaxeeya iyadoo aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan hay'adaha dawladda oo cirka isku sii shareeraya